nin waxaa jiray barsora oo barsorada waaweyn oo Soomaaliya darsa waay hadda waa duqoobay email-an marku xiriirnaa waa Mareykan marka 67 ilaa 68 69 Soomaaliya ku shaqeyn jiray kuliyadan la foolay oo marka 60 dhibaatameedii la furay 68 la dayactiray ayuu macalinka ahaa marka wuxuu yiri laba arrimood ka sheekeeyay oo Soomaali kula yaabay kala sarinta inay noqoto wax anarka ah oo xad ka baxday marka shirkan galay yiri oo kuliyada macallimiinta la soo galaysa karokolamiyada wixii aan hagaajinaynaa oo saxina qurxinaynaa marka waxaan jiru yiri subax walba la fadhiya laba nin oo gees ka fadhisa talay ku darsadaan karokolamka marka maalinta dambe wareesto waxaan war adinka waa inay qaanaa macallimiinta tiine labada nin oo maalin walba shirka soo gala ee gadaal fadhiya ee karokolam oo wax aqoon u baahan waay tala ku darsaday rasaah laga daayo maxay yihiin markaas ayaa liigu yiri mid waa cunna kariye kuliyada midna waa darawalka kuliyada حتى قاركود قبلة الدحى وحاجرة كوا وعلن تلاد والجلين جرا حتى تلا كل هنجرين ورني كم وعليه قال لك دايما اللي أما ما أنت حكمت أسود دايا دقيق كيا مركا وحول أما لقى فائدة وأنا دعابة أنا غير كان سلطان وهنجري مرتلا اسكم مرقضي غير كأنا جهوس عن كدش أو لك ساري أيا نن صدح بري فدي جيت هستي ولاد الدحى تضربات السنة كور وحبة ولا كينو تلا ولا مارين laba jufa isdil rabta marka nin lagu yaqeenay tolka dhaxdiisa inuu nin waalaya ayaa gacanta u taagantaa sax bari marka suldaankuna waa dhaafiyaa wuxuu yiraahdaa warheeb adigu hadal madu ugu celceliyaa suldaan ma mar uu isiisidu yiraahdaa waa loo diiday maalinta saddexaad oo la ismari waayay waa qorxataa arintaas maran kaga sheekay Journal of Modern African Studies ayaa ayuu yiri suldaanku wuxuu yiri war hadal abdi caato la oran jiray aanu ka ahaa dadka dhaxdiisa in xogaa dhimano lagu jiro ahaa Allah u naxariisteen suldaankii wixii oo dhan dadka dhintay markaas sulba hadal asagii hadloo yiri suldaan arintaas saasaan kala yiri suldaankii wuxuu yiri wallaan loo noqonayn waayo asagaaba soo afjaraba sidii saxda ahayd ee kala bixi lahayd saddex bari oo la kala bixi waay saddex maalmood asaa soo afjaray marka dhaqankaas saameyn u leh Soomaalidan waa dhaqan egalitarian ah marka kuuga u barsor Leighton ka shaqeynaa David Leighton Allah barsor Said Samatar ee bogus la qoreen la yiraahdo Soomaaliya Nation in Search of State Soomaalidu waa ummad raadinaysa qaranimo 87 daabaceen buukalana kaligiisa qoro waa BEDD 77 Soomaalida luqadeeda iyo ka shaqeynaya iyo farteeda iyo in la far loo sameeyo script ilaa waqti intay soo martay ayuu BEDD soo daabacay David Leighton Allah uu duqo hadda jaamacadda Stanford jaamacadda weyn marag kamid oo ka shaqeeya email-an kula xiriira marka ninkaas uu ahaa ninka arkay kuuga iyo يا دروال كل ما وحبرشوا كدر سنة هذا ما والله جاب أنا كوائي ما هذا أو مسكحة الربان انتجابي مركب عبار الله شاكستان قرنا يا مله أي مفدا ودي سمحتها وأكون معنا يعني واد بنك سوق شغال وأكون شيء يعني مركب واد لقن إنجلترا معها إني مرتين أما أنا يجمع مغليان سوق شمرك أنا نوش سيبوا ذي الملك اللي سو معنا واد نوع عسى مركب أمت سمعنا